dowladda Puntland ayaa ugu baaqday dowladda federaalka Soomaaliya inay joojiso sharciga shidaalka oo dhawaan la horgeeyay golaha fulinta ee dowladda Soomaaliya. agaasimaha guud ee hay'adda macdanta iyo shidaalka Puntland Ciise Faarax Dholowa oo saxaafadda kula hadlayay xafiiskiisa ayaa sharaxaad ka bixiyay sababaha Puntland ay ku diidan tahay sharcigani. hay'adda macdanta iyo shidaalka Puntland waxay ku boorinaysaa golaha fulinta ee dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda macdanta iyo shidaalka Muqdisho inay joojiyaan sharciga shidaalka ee hordhigeen golaha fulinta dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya bisha 10 August labadeedii sababaha soo socda darteed. sharcigan oo si sharci darro loo qoray ma waafaqsana ahdi qarameedka Soomaaliyeed ee hadda jira sida darteed dowladda Puntland ma aqbali doonto mana aqoonsan doonto sharcigaas maadaama aan lagu wada heshiin laga wada tashan ay samaysay wasaarad si sharci darro ku dhisan iyo gole xeer dejin oo qaybtiisii labaad ama aqalkiisii labaad weli uusan ahayn mid isagana la soo gudbiyay oo haatan jira. ahdiga ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee la sameeyay 2012 masiin dowladda federaalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo golaha xeer dejinta midna toona awood sharci oo ay ku sameeyaan shuruuc khusaysa arrimaha khayraadka dabiiciga ama shidaalka iyo macdanta ku jira Soomaaliya. waxa amuurtaasi ku cadahay oo laga heli karaa qodobada 45 iyo 55 ee ahdiga ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. agaasimaha ayaa sheegay in sharcigani ay dabada ka riixayso shirkadda Sam Oil waxa uu ku eedeeyay inay doonayaan inay si sharci darro u galaan heshiisyo cusub. hay'adda macdanta iyo shidaalka Puntland waxay ogtahay in sharcigan cusub ee qabyada ah ay dabada ka riixayaan shirkadaha shisheeye sida Som Oil and Gas shirkadda la yiraahdo iyo kuwa kale oo la halmaala oo doonaya inay si xaraana ku qaataan heshiisyo cusub ama lagu xalaalayo heshiiskii hore ee dawladdu la gashay shirkadda Som Oil and Gas oo iyadu lacag ay leedahay ku dhistay sida warqadaha hadda ay soo baxayaan wasaaradda macdanta iyo shidaalka Muqdisho shaqaalaheedana ay iyadu haatan bixiso ama ay bixin jirtay lacagta mushaharkooda ah. shirkaddan Som Oil and Gas oo si sharci darro ku heshay heshiiska ay hadda haysto ayaa waxa lagu wadaa baaris caalami ah sida ka warqabtaan oo khuseeya arrimaha musuqmaasuq iyo laaluush. baaritaanka lagu wado shirkadda Som Oil and Gas ayaa waxa saldhig u ah in laaluush iyo hab musuqmaasuq lagu siiyay heshiiska ay hadda la wadaagto dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. sida darteed hay'adda macdanta iyo shidaalka Puntland waxay dowladda federaalka ku boorinaysaa in ay ka baxdo heshiiska ay hadda la wadaagto shirkadda Som Oil and Gas maadaama shirkadaas ay ku socdaan baaritaano khuseeya arrimo laaluush iyo musuqmaasuq oo ay barka tahay wasaaradda macdanta iyo shidaalka dowladda Muqdisho ee dowladda federaalka ee Soomaaliyeed. waa mahadsantiin. ma ahan markii ugu horeysay ee dowladda Puntland ay ku eedeyso dowladda dhexe arrimo la xiriira khayraadka dabiiciga ee dalka waxaana wali muuqan isfahan la xiriira sidii bulshada looga faa'iideyn lahaa khayraadka dalka. Sucaad Saciid Nuux, Star TV, magaalada Boosaaso.